tirada dadka wadanka Qatar waxaa lagu qiyaasaa 1,800,000 oo qof. shirkadda isgaarsiinta ee Qatar Telecom waxa ay ka shaqeysaa 17 dal waxaana leedahay 107 milyan oo macaamiisha. dhammaan muwaadiniinta Qatar waxaa caafimaadka ka dhiiba dawladda marka lagu daweynayo dalalka dibadda ah. waa wadanka kaliya ee dunida korontada iyo biyuhu lacag la'aan yihiin. waa wadanka kaliya ee aan canshuur la qaadin. Hamad Airport waxaa loo aqoonsan yahay airportka ugu fiican dunida. waa wadanka koobaad ee dunida ugu fiican dhanka qaybinta ama qaybsiga fiber optica. waa wadanka koobaad ee dunida ugu kaabayaasha qurxoon. waa wadanka koobaad ee dunida ugu horeeya dhanka kaydinta lacagta. waa wadanka ugu nabadgelyada badan xagga ka hortagga dhibaatooyinka. waa wadanka koobaad ee wadamada carabta ugu dhaqsiyaha badan dhanka internetka. dalka Qatar waa wadanka ugu dakhliga badan adduunyada marka loo eego shakhsi walba lacagta ku soo aadaysa oo ah $146,000 sanadkii. waa wadanka labaad ee ugu taajiriinta badan dunida waxaana gaarayaan 30,000 oo milyaneer. waa wadanka koobaad ee carabta iyo wadanka afraad ee dunida xagga tayada waxbarashada. waa wadanka koobaad ee carabta iyo wadanka lixaad ee dunida xagga tayada caafimaadka. shirkadda duulimaadada ee Qatar Airways waa shirkadda ugu kabca badan dhanka duulimaadada. waxa ayna leedahay 170 diyaaradood. waa wadanka koobaad ee carabta iyo wadanka labaatanaad ee dunida xagga la diriirka musuqmaasuqa. waa wadanka labaad ee dunida ugu amniga badan leh xagga nabadgelyada. waa wadanka koobaad ee carabta iyo wadanka 12aad ee dunida xagga tartanka tabinta wararka adduunka. waxaana leeyahay shabakadda Al Jazeera oo 7 sano ku guuleysanaysay tabinta wararka degdega ah. waa wadanka koobaad ee dunida xagga shaqo la'aanta. shaqo la'aan ma jirtaba. That